waxaan rabaa in idin la wadaago arrin lagu farxo dhinac kale hadaan u dhigane laga naxo alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah walaalaha muslimiinta oo ilaahay dartiisa u jecelahay meel walba adduunkaadka joogtaan waxaa idinku salaantan lisku salaamtan ugu qiimaha badan salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalmo ka hor dadkii lo'da caabudi jiray lo'day caabudaan qaarkoodna jiirka caabudi jiray ama dooliga caabudi jiray qaarkoodna dabka caabudi jiray ayaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ay dadkaas markaan sheego waa garanaysa waa dadka hindida la yiraahdo iyo dawladda mujrimiinta hadda joogto oo ku imaatay ku soo baxday inay muslimiinta dhamayso waxay caayeen nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam shacbi ma qofka caay shacbi waaba la inkiri karaa qof jaahil waa la dhihi karaa wax kastay dhihi karaan laakiin waxa caay waxa waa qofka xisbiga wadanka xukumo ku hadlo magaciisa ayaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo xaaskiisa Aisha caay publicly waa laga wada hadlay aniga waxaan kamid ah dadka ka hadlay hashtag la sameeyay waxa ka hadlay dhan waxa waaye shacabka muslimiinta meel walba ay joogaan waxa lagu farxa waxa shacbigan oo awood badan aan lahayn oo social media kaliya ka hadlay waxay ku qasabtay dawladdaas mujrimada dabka caabudo lo'da caabudo diinta iyo akhlaaqda midna aan lahayn inay twitterkii tirtiraan ay dhahaan anaga diimanka dhan waa ixtiraamayna ay ku qasabtay waa shacbi caadi anagoo kale waxaan sameeynaa wax laga naxa waxa hal dawlad oo muslina hatta dawladdan Soomaaliya ha noqotee hal dawlad maanta ka hadashay tiriyo kale nabi maxamed in wax laga sheego ma ogelin waa yarihiin waa qatar sacuudiga iyo kuwait bas ka hadashay iyo munadama islaamiga taasna waa munadama waaye arrintaas waxay ku tusaysaa maanta hadii nabi maxamed wax laga sheego ama diinta wax laga sheego qof walba siyaasi inuu kursigiisa u baqay laakiin maanta hadii aabihiisa wax laga sheegi lahaa ama xaaskiisa wax laga sheegi lahaa ama qabiilkiisa wax laga sheegi lahaa ama dawladdiisa wax laga sheegi lahaa wuu istaagi lahaa wuxuu iska dhigi lahaa cantar uu iska dhigi lahaa qatar uu iska dhigi lahaa laakiin nabi maxamed wax laga sheegay wax naaga ma gelin taasna wax laga naxawaa wallahi billahi tallahi waa wax laga nax nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu dawladaha isaas u qiimeeyay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wax laga naxawaa laakiin ani adiga waxa loo baahan yahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inaan faafino taariikhdiisa siiradiisa aan ka hadalno social media aan ka hadalno ayaa loo baahan yahay tan labaad oo loo baahan yahay waxa waa bidaaca kasto hindiya ay sameysayna hal la gooyo yaa la gadanin wax kasto dawladdaas dhaqaale ka soo geeyay hal la gooyo الله يدين حفظيه نبيغا قف استاغ هدي لوايو اديغا او استاغ ان استاغنا نبينا صلى الله عليه وسلم سيرديسا ان برنو ان برنو ان سي برنو اخلاق ديسا ان برنو ان كو عمل فلنو ددكنا ان اوغو ييرنو طلبا دولت كستو wax ka sheegtay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam bidaacada aan gooyno France oo dawlad Yurub ku taalo hindidaas xun ka dhaqaala badan waa cabaade markii la gooyay wax kasto hindiya lagu sameeyay in India ku qorantahay yaa la gadanin isbitaaladkooda yaa la aadin wax walba dhaqaale ka soo galay hal gooyo ilaahi ugu dhawow nabigaagana ugu gargaar arintaas khayr allah ku siiyo jazaakumullahu khayr barakallahu fiikum waxaan aad aganaha dadka madaxda isku sheegayo oo nabigooda qiimo badan ka lahayn waxaan dhahma garanaaye annagu waxa loo baahay markiina u istaagna nabigeena allah idin wada barakeeyo fadlan jazaakumullahu khayr barakallahu fiikum ilaahi dartiisa idin jecelahay ka qayb gal siirada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ina qaybisi faafisid baratid dadkana aad sii bartid dawlad ka soo gooysay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wax ka sheegtane inaan culays saarno intaan ka awoodno waxa waaye waa qof walba intuu ka awoodo adaf al iimaan waxa waaye inaad gooysid bidaacadeeda allah ku barakeeyo salaamu calaykum